بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabnaa inaan maanta halkan uga hadalno oo shirkan jaraa'id aan u qabanaya dhacdo shantii bishan ka dhacday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose dhacdadaas oo ahayd in lagu kufsaday laba hablood oo reer Janaale ah oo lagu kala magacaabi jiray Taliya Cabdullaahi Xasan oo 13 jir ahayd iyo Xaliimo Cabdullaahi Ali oo iyana 35 jir ahayd waxaan aad uga xunnahay dhacdooyinkan kufsiga ah oo waayahanba gobolka Shabeellada Hoose ku soo noqnoqonayo annagoo og bishii la soo dhaafay in laba hablood oo da'doodu ay aad u yarayd lagu kufsaday degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose taasoo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan ku reebtay xanuun mahadha ah iyadoo ay tii taagan tahay ba shantii bishii la soo dhaafay aan iraahdaa ama bishanba waxa lagu kufsaday deegaanka Janaale labadaas hablood oo midna ay 13 jir tahay iyo midna 35 jir waliba uur la ay tahay markii aan la xiriiray maamulka deegaanka Janaale waan ognahay inay xoreeyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo laga xoreeyay ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab waqti kooban oo ayna dareemeen dadka Shabeellada Hoose gaar ahaan dadka deegaanka Janaale inay heleen nafis culayskii ay ku hayeen shabaabku muddadii dheereed ee ay deegaankaas gacanta ku hayeen waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo har iyo habeenba u taagan difaaca iyo gobonnimada ummadda Soomaaliyeed iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab hase yeeshee xiriirkii aan la sameynay markii aan maqlay xogtan ah in laba hablood lagu kufsaday deegaanka Janaale markii aan xiriir dhow la sameynay gudoomiyaha deegaankaas Janaale al-Cadaala wuxuu noo sheegay in dhacdadaas ay tahay sax dadka kufsaday labadaas habloodna ay yihiin kuwo aad u qaab daran oo sharafta iyo magaca ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed wasakhaynaya oo kamid ah ciidanka qalabka sida oo xoreeyay deegaanka Janaale labadaas nin ama labadaas askari oo lagu kala magacaabo Maxamed Aadan Cali Sheekh iyo Isaaq Ibraahim waxaan aad uga xunnahay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed waan ognahay inay har iyo habeenba u taagan yihiin difaaca dalkan naftoodana u waayaan ilmahoodana ay u agoontoobaan ayagoo ka difaacaya xumida ay kula kacayaan kuwa shabaabka ah ee qaabta daran iyo dadka dawladnimada Soomaaliyeed aan sharafta iyo wanaagga u haynin intaba la dagaalamaya in ayaga laftirkooda qaybo kamid ah ama qof iyo labo kamid ah uu ku kaco fal aad u xun oo aan bini'aadamnimadana ku jirin haddana sharafta qofka Soomaaliga iyo hablaha Soomaaliyeed ba aan ku jirin inay ayagu ku kacaan waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada qalabka sida oo markii ay ogaadeen inuu raadka ayaga soo galay markiiba sameeyay dabagal iyo xoraansi fara badan gacantana ku soo dhigay labadaas askari ee dambiilayaasha ah ee hablaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo karaamadooda meel oga dhacay waxaan ka codsanaynaa ciidamada qalabka sida xiriir markii aan la sameynay waxay noo sheegeen dambiilayaashaas in gacanta lagu hayo dabadeetna loo gudbiyay magaalada Muqdisho sharcigana la marin doono gabood falka ay u geysteen hablaha reer Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Janaale ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo garab istaagga shacabka Soomaaliyeed ay u muujinayaan iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee annagoo waliba la amakaagsan tareen weyn gelisay dadka Soomaaliyeed haday tahay madaxda qaranka iyo shacabka kan ugu hooseeyaba dhacdadii ka dhacday degmada Afgooye hablihii 4 jirka ahaa iyo 3 jirka ah lagu kufsaday in haddana isla gobolka Shabeellada Hoose arrintan ay ka dhacdo dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya aad bay uga xuntahay waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo gudoomiyaasha aagaga hadda dib loo xoreynayo inay aad uga foojignaadaan in xoreynta dalka aan loogu soo gabanin in lagu dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed iyo hablaha Soomaaliyeed oo sharafta iyo karaamada mudan in cirdigooda iyo sharaftooda meel looga dhaco mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa ciidankaas qalabka sida qaybtooda xun oo sida foosha xun u dhaqantay
oo aan matalaynin ciidamada wanaagsan ee qalabka sida ee Soomaaliyeed oo har iyo habeen ba u taagan difaaca dalkooda in sharciga la hor keeno wixii ay sharcigaas ku helaana la mariyo maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed saraakiisha hogaaminaysana aan ka codsanayna inay la wadaagaan xogta saraakiishaas hadba meesha ay soo gaarsiiyaan lana mariyo sharciga hadii Allah ido shacabka gobolka Shabeellada Hoose waxaan ka codsanaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee amniga ee xoreynaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo geeyiga Soomaaliyeed guud ahaanba kana xoreynaya nabadiidka shabaabka iyo kuwa aan dawladnimada rabin inay la shaqeeyaan hareer istaagaan xogahana ay la wadaagaan xogta cadowgana ay siiyaan saraakiisha kala duwan ee hogaaminaysa hagida iyo hogaaminta operationka lagu wado la dagaalanka al-shabaab sidaa daraadeed anagoo ka xun dhacdadan ku soo laalaabanayso gobolka Shabeellada Hoose waxaan isla ka codsanaynaa gudoomiyaha degmada Afgooye in uu soo bandhigo dadkii loo soo qabtay kiisaskii kufsiga ahaa ee 18 ka ahaa in la hor keeno maxkamadda madaniga ah hadii ay yihiin dad shacab ah hadii ay ku cadaato inay qayb ka yihiin ciidamada qalabka sida la horgeeyo maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxaan uga tacsiyaynaynaa dhacdadaas foosha xun qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii ay hablahaasu ka soo jeedeen iyo dadka deegaanka Jannaale oo uu u bilowday horumarka dawladnimada iyo baraada inay dib ugu soo laabtaan kadib markii deegaankoodii dib loo xoreeyay